السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن إذا سلام يا دمانتين ميرول بتديو ذيك السجنتين وواسك تقبلوا وهاك بلو فارح على الكيس معوكي كيرا بشير بالله متانين حسن قرص عب كيس خرج درس كيس كنولا وراونا قرسيكو ساها جاب كجا لكتب عن سوريا بناوين شن تابع بغري سود وانا عند الله ميرول بتديو ذيك السجنتين إنا لله وإنا لله راجعون. إلهي جنة حقيو إلهي هاون حريستو أبوان سنجوب إلهي بنجج على ذي إلهي بنجج على ذي إلهي هاون حريستو المسلمين تا سوماليات المسلمين تا عالم كلنا أنت مو قيسة يوم مقل كيسة بقرنيس أبوانك هلوسو دعيو وحقيق وحاوي ونجتغي الديادة إلهي بنجج على ذي وأن أتعسينا إننا فمل كيسة عروتيسة حاسس كيسة إهل كيسة بقيت الله دلتي أيقونوا حلا يسمري إيمان الله النجسيو وحوها أبوان قالي تاريخ وين كنا حلاكم مدة الصوماليات يجيج الصوماليات شنطة الصوماليات لو قرنيو وحوها ندل كنوسها الجمي واجي ونبضها يواجي وبربر كدعايب الله بضا بنو وحوها دلك الصوماليات مروا البيت وناجي سيف نانتيس وتجنبها دمانتين وحلينا إلهيو إلهه ونحريسه إلهه الجنة الجي وحنكروا نادوا عن بارين يا رجل السوشيال ميديا هسلو سوقلنا سيدا خلطن أذيركي سوردي سام الله وذا مالنا الصودا فمصدح مالنا الصودا في سيدا خلطن وجهد أذيركي مشروع من غنكره وفي عنتين أسكج حرتان أو مجرسة إسكديسان أولاك بحدان إذا كان إذا ما قرحونه مستقبل كيني أيه هنا وما قرحونه waxaana wanaagsan qofka Soomaaliga aan siyaasadda ku jirin magaraysaay indad garadka ummadda Soomaaliyeed sida abwaanada dhaqaatiirta iyo macallimiinta magaraysaay siyaasadda kuma jiraan waa ummadaas u dhaxeeyaan ummadaas ay magaraysaay mideeyaan qof walbo Soomaaliyeedna isugu mid weeyaan marka inaad siyaasadaysaan oo mashruuc ka dhigataan واد بربغانديسان واد بين iyo waxaan loo joogo inaad ku socotaan waad eedeysaan wallahi been ma waad eedeysaan oo si adduunyo si aakhiraba labadaba waad eedeysaan marka waxay ku qurxoon tahay ku qurux badan tahay ku fiican tahay inaad magaranaysaay waxyaabaha barbagandada ee qaabka daran inaad ka fogaataan sharafta waxay ku jirtaa ciziga waxay ku jirtaa raganimadu waxay ku jirtaa qofka ilaahay inaga jeclaado ama walaalka ahaado ama walaalkay ahaado inaan magaraysaay si isku si ugu tacsiyeeno oo ilaahay aan u barino ilaahay inuu jannada geeyo aan u barino yey magaraysaa sharaftii Soomaalinimada ku jirta ma ahaado view raadinayo ma ahaado comment raadinayo inaad magaraysaa qof meetiyo ka hooseeyo aad magaraysaa ka qorotid wax aan jirin iyo been propaganda ka qortid especially rag qori oo soo yihiin waa wanaagsan tahay way fiican tahay in la is ixtiraamo oo la is sharfo oo aad la is sharfo kuwa propaganda iyo beenta soo qoriyaan aan magaranaysaa hadalka uu ku socdaa abwaan sangub kullay taariikh aad u dheer budalkan ku leeyahay oo halkan aniga aan ku soo koobi karin ama shakhsi idaacad ka hadlay uu soo koobi karin haddii la dhaho laga sheekay taariikhdiisu waxay noqonaysaa in magaranaysaa documentary iyo barnaamijyo fara badan laga sameeyo cajalada badan bay qaadanaysaa marka waxaan ugu tacsiyanayaa familka raadeerkay الله إنا لله وإنا لله راجعون إلهي جنة هجيو وحوها نن صومان لماذا يكون تاي الإسلام بوها عرور بدن بودلي ما شاء الله عرورتي سنة وحلا يا المادة الريال سمري إيمان أهلنا إلهي هنجا وذا السيادة لكن إذا كان أبيهن جنة بوتجية إن شاء الله هدو إلهي رادو هل كامر كان تعسيد أقبحه وأنا هل كان تعسيد أن كدافو dad badan baa qoraalle iyo waxaan jirin soo qoriyo kullay shalay gabar u dhalay baa soo gashay page-kayga waa soo galiyay abwaanka ilaahay baa ka hadashiyay qofka ilaahay uu jecel yahay diintu ku dilaa waxa wanaagsan buu ku dilaa waxa quruxda badan buu ku dilaa abwaan soo gubinta soo muqdisho joogay ma sha Allah tii ilaahay waa gooni laakiin inta uusan dhimanin maalmihii ka horeeyay waxa hadal afkiisa iyo magaranaysaa qof walba loo hadlo uu codsi uu weydiisanayay in ilaahay loo bariyo in xajkana la geeyo ma sha Allah wiilashiisa gabdhihiisa ilmaadiradii
iyo dadka Soomaaliyeed baa u kacay xajku u socday laakiin ilaahay intuuna xaj gaar ilaahay baa naga jeclaaday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun baan leeyahay samariya iimaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed ilaahay ka siiyo waxaa la hadlayaa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagdar iyo groupkiisa iyo waxaa la hadlayaa dowladda nabadii nolol iyo Soomaali meel beeti joogto oo magaranaysaa Soomaalinimada ay ku weyn tahay wixii aan Soomaali ahayn kuma darnaaniga abwaankan wuxuu ahaa abwaan qaran weyn wuxuu ahaa abwaan Soomaaliyeed buu ahaa wuxuu u soo halgamay muddo dheer u dagaalamay ummadda Soomaaliyeed anigu fikirkayga waxaan qabaa oo dad badan oo Soomaaliyeedna ila qabaan in abwaanka dalkiisii dib loogu soo celiyo eheladiisa iyo familkiisa iyo reerkuna inay inta accept gareeyaan aas qaranna loogu sameeyo magaalada Muqdisho maadaama uu ahaa icon ama magaraysaa fursad magaraysaa ama qof treasure soo wuxuu ahaa treasure ana waxa ka wadaa treasure waxa la yiraahdaa wax dalka uu ku faano dal walba wuxuu leeyahay wuxuu ku faano ama shakhsi haado ama dhaqaalahaado ama magaraysaa kheyraad kala haado abwaanka Soomaaliyeed abwaan Sangub wuxuu ahaa one of the treasure ka Soomaaliya ahaa oo naxariisto dawladda Soomaaliya waxaan kula dardaarmayaa oo aan halkan talaga soo jeedinayaa in abwaanka loo diyaariyo aas qaran in magaranaysaa Soomaalinimadu ay weynaato weyn inaanan magaranaysaa aan la dhayalsan arintan oo magaranaysaa aan noqonin wax Facebook laga tacsiyo oo sawirka abwaanka la soo qootay ee aysan noqon waxaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo magaranaysaa wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliya aan ka codsanayaa in abwaanka loo sameeyo aas qaran meydkiisana dib loogu soo celiyo siday caadadu ahaan jirtay ee halyeeyada qaran iyo dalka magaraysaa dadka u soo halgamay ama u soo dagaalamay sidii meydkooda loogu soo celin jiray dalka iyo Muqdisho loogu soo celin jiray ee calanka Soomaaliyeed ee loo dul saari jiray baan codsanayaa in dawladda Soomaaliya iyaduna sameeyso insha Allah hadii loo sameyn doontaa qabadeedana way ku socotaa maamulka jigjigana waxaan uga digayaa inaysan arrinta soo fargashan waan hadallo badan bay soo gaareen inay soo fargashan abwaankan abwaan local ma ahayn abwaan degmiye magaalo gooniye magaraysaa abwaan waa ma abwaanku abwaan Soomaaliyeed insha Allah hadii la shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed aad bay uga dhidhisay waan maasan yihiin waana xaqiiq abwaanka waxa weey Ilaahay baa naga jeclaa soo dhawaada t-shirt gareeya si gudbiya gaarsiiya page kaleeto aad yaa maalmaha gacantiina way hooseysaa gacantiina maalmaha sheerka waad hakarnaysaan magaraysaa aad yaa sheerka hal sheer gareeyo gudbiya gaarsiiya page kaleeto la gaarsiiya aad yaa laandheer idinka ku ashoobo taasida abwaanka halkaas kaga baxaya Ilaahay uu naxariiso Ilaahay jannada gee adeerkii aad u jeclaabo ahaa aad u jeclaabo ahaa ma sha Allah wanaad ugu faaro Ilaahay baa naga jeclaaday qof walba oo Soomaaliyeed ama qof walba oo Islaam ama qof walba oo adduunyada ku nool maalin uu soo uga haluulaya adduunyadan aad intaasaan kaga baxaya taasida waxaan galayaa magaalada Kismaayo oo isu bedeshay kawaankii bini'aadamka سيد الله سعطان ودكتهين إن شاء الله الدولة جورد وبلوك اسمه هذا وأنا دي شيء جاب قرار السوق مركان دو حسن أنا جو سميريا أموان يليا نك سميانا حتى كور مقدشو يا سارو كلتو أنا ذكور وأنا هذا يا ضد بدن باوحيرة دبلو عيار بكتير تمايزين أنا اللايف كان كجرو وذكر اللايف كان أديك داور إنسان ينتقد جوستي ديارات راعي وحنا كدكت آذن عدى international airport بكدكت حدنا وحنا سومالية أسعدا وأن آذية وأن كامبينك يدور الشذا يقولوا الدور الشذا كبلا بيننا نقال هذا كسمايو هديو إلهي يراد ونفسد إلهي نقص نقال هذا كسمايو وحا هذا كسعود وحلود الغاذا كرمان وأنا بيش عالم كإندي هذا اللي قصو جدية وأنا الدولة الصومالية أنا في رساء وأنا الشعب كالصوماليين عندها أي كويجا نكا أحمد ليرادو وح وضو وح ونكسن ما وح ومدن دنو ما بقول جربان وأذيركي ضد أساي وحيجو لكن سياسة أهان أنا قمت هجرسين وحنادي هذا وكل صون هاي وأن جعل هاي نبرتكتو ما دام وصورسي وماشي سو نجي ومجرد هاي مامل صورسي maaha inuu maamulkii uu dhisay uu dib u burburiyay waxaad wax u dhisay waa aniga iyo wiilasha adeer ku tahay
waxaad wax u dhisaysaa wiilasha Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed ma aha inaad magaranaysaa qaatumo xumo iyo magaranaysaa magac xumo aad kaga tagtid kismaayo ma wanaagsan waa dhaqan iyo caado aan leenahay tan hadda ka hor waxay ku dhacday in la yiraahdo Cabdile waxay ku dhacday Maxamed Siyaad Barre ku dhacday waxay ku dhacday rag badan oo Afrikaan oo madax ahaa oo adduunyadan caanka ahaa oo la garay xukunkan aad u jeclaa yaa arinta ku dhacday adeerkay Axmed Madoobe waxaan leeyahay waad soo hagaajisay wadanka waxbaad u soo qabatay laakiin siday wax u socdaan iyo qaabkaad wax u doonaysid ee aad rabtid inaad ku soo noqotid qaab wanaagsan ma soo dhawaada sii sheer gareeya sii gudbiya insha Allah dulara bishan waxaan dagaal la galayaa oo campaign oo aan aad iyo aad ugu campaign gareynaya magaalada Kismaayo way aad laandheerayaasha sheer gareeya intaad sheer gareysaan gaarsiiya beejadka kaleeto anigu xaqaan jeclahay xaqana waan jeclahay xaqiiqda inaan sheegana waan jeclahay magaalada Kismaayo shalayto waxa lagu dilay nabadoon Soomaaliyeed nabadoonka beesha jareer weyn ama biyamaal jareer weyn ma garanaysaa biyamaal jareer weyn nabadoonkoodii baa la dilay xabad baa lagu dhuftay waxaana la yiri al-shabaab baa dishay dhageysta waxaan nabadoonnada loo ugaarsanayo ee loo dirayo iyo cuqaashii odayaasha loo dirayo Soomaaliyay ogaada oo la socdo doorashadii baa socoto xildhibaanadii baa la xulayaa inuu meesha madaxweyne kale iyo maamul kale iyo dawlad kale ay timaado ayaa la rabaa laakiin ragaan ogahay iyo maamulka hadda talada hayo arinta iyada ma rabaan inay marnaba dhacdo aad u dhageysto Axmed Madoobe sheekada uu wado beesha caalamkana kama gadbayso anoo duqbilowna kama gadbayso dawladda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeedna kama gadbayso haddii dhageysta qisadan iyo arintan la isu dilay Kismaayo ka socotaan wax yar idin ka dabageynay hadalka dhigeysta hadday maskaxdaadu qaadato waxaad ii soo qortaa duqbilow maskaxdeeda way qaadatay yeesh ii soo qor kaliya meel baad madaxweyne ka tahay doorasha la rabaa inay dhacdo isbedel iyo magaranaysaa system cusub iyo magaranaysaa ummadan in magaranaysaa isbedel ay hesho ama kaaga ha ahaada ama ku kala ahaada ayaa la rabaa madaxweyne tahay hadalkayga u dhageyso rag baa kula challenge gareenayo dhageyso rag baa inay kula challenge gareeyaan oo doorasho ay kula galaan oo cadaalad baa la rabaa adigii baa madaxweyne waxaa tiri doorashaan qabanaya doorashada aan qabanayana waa sida tan batiri odayaashow guddigan waa guddigii anigu aan sameeyay ee guddigii doorashada weeye anaa sameeyay anoo duqbilow baa guddiga doorashooyinka sameeyay waana Shiina Culay iyo Daahir Calasow iyo ma garanaysaa Allah musta'aan raggi saaxiibada idin keeno idin Daahirow iyo Shiina Culayow waxaa tihiin guddigii doorashada qabta duqbilow iyo dawladdiisa doorashada qabta haye guddiga waa guddigii doorashooyinka waanu garanay odayaasha waxaad samaysaan 3 nin soo xula oo idinka soo xula marka koowaad odayaasha 3 nin soo xula waa 3 1 2 3 saddexdan nin waxaad u keentaan raggan anigu aan magacaabay ee Shiina Culay iyo Daahir Calasow iyo Cabdiqaadir Booska oo guddigii doorashooyinka aniga aan ka dhigtay u keena waanu garanay markaad u keentaan saddexda idinka soo xushaan odayaasha orda marka qaylaadiini aada oo gurihiiniska aada ragga Shiina Culay iyo Daahir Calasow iyo Cabdiqaadir Booska oo aniga ka dhigtay ee guddigii doorashada ee madaxtinimada qaban lahaa yaad u keenaysaan 3 nin oo odayaashu idinku soo xushaan 3 nin ee idinka soo xushaan kadib Daahir Calasow iyo magaranaysaa Shiina iyo Cabdiqaadir Booska ayaga xulanayo kana juus garaysanayo midka xildhibaanka noqonayo hadalkayga aad u dhageyso midka xildhibaanka noqonayo ee baarlamaanka Jubbaland ku biirayo Shiina iyo Daahir Calasow iyo Cabdiqaadir Booska yaa xulayo oo madaxa ka taawanay kan ayay waxay dhahayaan kan aan madaxa ka taawanay yaa noqonaya xildhibaan adduunyada laguma arag adduunyadan kama aysan dhicin doorashada sidaa u dhaxaday doorasho ma iska days oo dictator baana ay tiraad aan kula dagaalanay bal adigu ka hadal bal arinta adigu arinta ayade
بل مية كل قمت هدي كل قمت هايده هدينا كل قمنين نود داير iyo booska iyo shiiwa saaxiibadii magaris warag saaxiibadii waragan wada qaraabanayno waxa weeye dakadan iyo magarisay Facebook sharekiisa iyo magarisay iyo like-tiisa iyo subscribe-ka YouTube-ka ragan isla raadinayno isla daala dhacayno kolba meel ka soo galayno weeyaa ina YouTube iyo ka baxno iyo social media ka dhaxbaxna marnaba dooni mayno wadi faantay marnaba dooni mayna ka dhaxbaxno marka si aan ugu sii jirno waa inaan dadka taageerayaasha ama dadku waa inaan magaranaysaa wax mala awaal ama waxay tahay waa inaan keenna way aadiyad marka Axmed Madoobe hawsha uu wado waa taawi saddex dhowr nin buu wuxuu yiri waa guddigii doorashooyinka ana magacaabay madaxweynenimo ku soo saaray garanay haye odayaashii waxa la rabay inay ayagu soo xushaan baarlamaanku tuulooyinkooda ay ku noqdaan guryahooda ay aadaan wiilka ay karti ku ogyihiin ama wiilka isleeyihiin kan baa xilibaan noqon karo inay keensadaan bay hayeen odayaashii Joyce lama sinin odayaashii waxa la yiri orda guryihiina aada oo waxaa noo keentaan saddex nin keena saddex nin hal baa odayaashu hal haday keensadaan waxa weeye doorashadaasi baa dhacayso waa laan dheer cid dooro ugu rudayaba garaysadii waxa lagu leeyahay odayaashow saddex nin ii keena inaad faantaan baan rabaa dagaalka iyo dilka iyo magaranaysaa arrinta ka socota Kismaayo ee kawaankii dadka isku bedeshay yaa rabaa inaan idinla socosho waan tagaya wallahi xamar baan kaga dhabeeyay wallahi been ma xamar basaan bantaan soo galay yaa waxaan dubulo waxa uu maago cid ka celin karto male cid haba yaraatee ka qaban karto male wallahi haday agtayda xabad wiif soo marto iska daal shabaab wiif haday soo marto wallahi iyo billahi la isku baabiyo la isku dhamaanaadiyad meeshu dimuqraadiyad bal dhageysta hadalkayga dhageysta odayaashii Joyce lama siinin waxa la wiiri saddex nin keena saddexdaa nin yaa Axmed Madoobe ninka codka ugu rudi doono Axmed Madoobe ninka codka ugu rudi doono ma garash ii kaadii bal naag yaro meesha aan blogaray aadi block ku qabo ma garash aadi waa dhashi Axmed Madoobe weey aadi or faradahay dhageysta saddex nin keena saddexdaa nin midka Axmed Madoobe ugu rudayo codka ee siinaya codka yaan xilibaan ka dhigaynaa weeyaan hadalku laakiin beesha caalamkuna diiday ummadii Soomaaliyeedna diiday dawladii Soomaaliyeedna diiday ummadii reer Jubbalandna diiday yeelina mayno mara ogolaanayno ta kale cilada kale hadda taagan ma garanaysaa in laga dhawaajiyana u baahan waa midan hadalkayga dhageysto Axmed Duxurayste iyo Axmed Madoobe iyo maafiyada Kismaayo joogto ee dhuxusha gubto ee al-shabaab hubka u soo dajiso ee dekada Kismaayo uga soo dajiso ee dawladda Kenya ee geysatay Kismaayo ee aaminsan in Kenya lagu biiro ee mar walba gabdhaha naga kaliyaha kala baxayo ee hal doorka naga iyo cuqaashanadii dilayo arrinta ay wataan ay rabaan inay ummadda u soo geliyaan ee haddana la rabay la isla qabadsiiyaan idinka dabageliyay hadalkayga dhageysto doorashada waxay rabaan gacantaag in laga dhigo gacantaag ma taqaanin waa fawdo weey see madaxweynaha mustaqbalka ee hooyada Jubbaland joogto ee gada iyo jubbada hoose iyo jubbada dhexe joogto masiirkeeda see gacan iyo far dhaxool la taagay see loogu maamulaya farta dhaxa taaga weey hadalkeedu farta dhaxa taaga oo macnaheedu ay tahay in hoolka la yimaado la yiraahdo gacanta taaga yaa Axmed Madoobe doortay laba gacmood taaga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Axmed Madoobe madaxweyne noqday yaa hebel dooranaya gacanta taaga oo cidnama dooran karfaanka damiya oo askarta u yeera fawdadaasi ka dhici meesha Kismaayo Jubbaland doorasho xor iyo xalaal ba ka dhacayso Axmed Madoobe hadduu aqli uu leeyahay wallahi wiil adeer u yahay baanahay waa la tiri adeer macaana meesha sharaf kaga tag meeshan raasmi kaga tag meeshan legacy kaga tag yeena la taliyaal waalan oo businessman
oo hilib xalaaliye taksiilayaal ka ahaan jiray Minnesota yaysan kaa waalin Jubbaland adaa iskale wallahi been ma markaan xaqiiqda iyo reality ka hadla you the founder the father of Jubbaland bata laakiin the father and the founder of Jubbaland haddii bahdilaad kaga tagtid adeer macaana meesha waad ku bahdilmaysaa legacy-gaaga uu baabaamaya waxay sharaftu ku jirtaa sida Cabdiwali Cali Gaas iyo Shariif Sakiin iyo raggan ogahay ee dalka soo maray sida sharafta lahayd uga tageen inaad uga tagtid annagaad fursadna siisid annaga oo reer Jubbaland oo dhalinyartii Jubbaland inaad fursadna siisid oo legacy-gaaga aniga u dagaalamo sii wadon dhaho adeerkay am the founder of Jubbaland ayer faraha ka qaadaya la taaban inaad ku dagaalamo eegish laakiin rag baa kuwaali oo islaamaha kuwaali ad contractiyasis ya kuwaali mid kale idin sheego sirar idin qarxina dhageysta airportka Kismaayo madaar Kismaayo ku yaalo hadda aadan Sayd Maxamed Cabdullaahi Xasan loo bixiyay waxaa degan ciidamada Amerikaan baa degan hadalkayga aad u dhageysta Axmedooba contract fiican buu ka qaatay nimanka Amerikaanka ma ogo laakiin waa wax ma garanaysaa federaalkana uu ogyahay waa wax ma garanaysaa dawladda Mareykanka dawladda Soomaaliya sogyiin asagu laakiin iyo group la joogo yaan hadaladooda ka dheer Mareykan baan la joogo saldhig baan siinay contractiyaal bay ka qaateen waa weeye adeer macaana adiga oo madaxweynenimo ma garanaysaa dalkan iyo dad u carbiyo dalkan doorasho ka dhacay yaa shidaalka aad u geysid ciidamada Mareykanka ee degan saldhiga degan contractigaaga way sii socon ha ka baq badeecadaada iyo baac mushtarkaaga way sii socon ha ka baq laakiin haddii ka dhici xabad laga saaro meesha dagaal sakeeyo uu ka dhaco wuu dhici baanaaba ku sheeg wallahi wa billahi tallahi Axmedow qaabkaadu wax u wadid been duqbulow been kuma dhaarto qaabkaadu wax u wad hadaad ku dhaga adeegtid oo aad sii wadid wallahi wa billahi tallahi inay xabada ka qarxi Kismaayo wallahi been ma inay xabadu ka qarxi kaadiba soo cabiyay waa soo cabay socon meesh way ka qarxi xabadu inay ka qarxi laba calis weydiin meesh laakiin waxay reer Jubbaland iyo adiga iyo anigu faa'iidada inagu jirtaa inaan si wanaagsan oo qurux badan oo sharafe oo cizi inta doorashay nagu qabatid inaad tiraahdo wiilashaydiyow reer Jubbalandow hor u sii socda guulaysta korkana waa idinka ilaalin ayatullah Khumeydi wallahi taas talada ugu wanaagsan ugu fiican taa weeye ha ku sharaf beelin rag baa ku sharaf beelay ha ku sharaf beelin rag baa hunguriga noocan oo kale te wallahi ku sharaf beelo waji gabax kaga tagay oo maxkamadiyo balaayoyin iyo bagyadooda in la daba garo ay sii socoto waxaa wanaagsan inaad si sharaf leh oo cizi leh oo karaamaysan oo aad iyo aad u karaamaysan inaad kaga tagtid wanaagsan dhageysta hadalkayga aad u dhageysta dardaaranka Axmed Madoobe siinay way marnaba ogolaan meena haddaanu nahay shacabka reer Jubbaland haddaanu nahay isbedel doonka Jubbaland marnaba ogolaan meeno in gacan la taago oo 1 2 3 4 5 la dhaho wallahi ogolaan meeno waxaan ku qanacsannahay oon ogolnahay dhalacad oo cad in sidii dhaqanka aheed caadada aheed madaxda Soomaaliyeed lagu dooranay in miiska la soo saaro in cod qarsoon halkaa ka dhacarna we don't wanna inaan ogaano ka aniga ii codeynayo iyo ka Axmed u codeynayo iyo ka Xidig u codeynayo iyo ka Omar u codeynayo inaan ogaano dooni meen sidaas ay dimuqraadiyadda ku jirtaa sidaas ayay dimuqraadiyadda iyo horumarku sidaas ay ku jirtaa yeeli mayno ogolaan mayno adeerkagiyow Axmedow ka ogolaan mayno marnaba ina saddex nin la soo xulo oo madaxa ka taabsatid ogolaan mayno waxaanu ku qanacsannahay haddaanu nahay isbedel doonka Jubbaland oo aad iyo aad ugu qanacsannahay in odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee weligoodba soo xuli jiray xildhibaanada Soomaaliyeed inay soo xushaan ay keenaan wiilka ayaga ay rabaan ee yiraahdaan kan baa xildhibaan inoo noqonayn ka yeeli mayno saddex baa madaxa laga taaban marnaba dhici mayso ma dhacayso doorashada sidaas kuma dhacayso okay waxaan la hadlayaa ciidanka Jubbaland balladlay hadalkayga aad u dhageysto haddii aad maskaxdaada shaqeynayso haddaad askari tahay iyo haddaad civil worker aad civil employer tahay oo dawladda u shaqeeyaa tahay
وحاول أدو اسمه بدريش هداد كورنيل تاي كورنيل كاغادهان هداد بوليس دبلا هيدو جبلا نو شقيسيد واد اوسي شقين موادن دالكني ديغان كورن شبات لكن arrinta siyaasaddu adoo askari ama civil magaraysaay worker oo dawladda u shaqeeyo ha soo faragashan arrinta siyaasadda wadeedi beenma shaqadaada ku ekow shaqayso umada u shaqee xafiiska lagu dhiibad ka shaqeynaysid kasi shaqee uu sii shaqeyn doon xafiiska la soco kuwa godobta galay maanta Jubbaland ka shaqeeya kuwa godobta galayo ee siyaasaddu ay saameysay ee faraha la soo galay isbedelkan uu dhici no matter what Ahmed Madoobe waa la bedelay wallahi beenma magac Ilaahay ku dhaartay 42 cisho inaga xigto July kaliya only July kaliya yaa inaga xigto doorashada Jubbaland waa August 15 weyn way bad isbedel baa dhici askarigu la bedeli maayo militariga la bedeli maayo xafiiska midka ka shaqeeya ee magaraysaay civil worker ka la bedeli maayo uu sii shaqeyn waad sii shaqeyn laakiin maalintaad godob gashid waa lagu waan ku monitor gareynaa insha Allah haduu leeyahay sida Cabdi Ilay ku dhacdo ogti shaba habahsan laakiin rag baxsada waad ogta Cabdi Ilay xukunkiisa rag baxsada waa rag social media ka caaytamay odayaasha caayay ee siyaasad aanan ayagu dan ugu jirin faa'iidana ugu jirin ma garaysaa faraha la soo waa kuwa maanta wareegaya Soomaaliya ee carrayshaba yes Ahmed rejiimkaasi siyaasaddiisa administrationkiisa kore iyo wasiiradu bas bedelay nagish Ahmed Madoobe oo madaxweynaha ah iyo wasiiradiisa wasiirada ku xigeenka bas bedelay intiina kale waad sii shaqeynaysaa shaqadaada waad wadan laakiin yay xadaarad ku qaadin bari Omar baa madaxweyne noqon waad iga soo bixado hooyadii caayay aniga caayay dadka caayay ma garaysaa saan ogahay u dhaaray what are you gonna do maxaa sabeen wala ka roonaaso hadda ku dig hadda runta ku sii sheeg hadda xaqiiqda duqbalo ku sii sheeg hadalka ayuu caruurtaada korso shaqayso nabad ku noolow ha soo faragashanin siyaasaddan way isbedelaysaa cid isbedelka hor istaagi kartiyo cid qaban karta ma jirto uu dhacayaa isbedelka uu dhacayaa isbedelkan hadduu Ilaahay yiraahdo adiga marka caruurtaada u shaqayso shaqadaada dawladeedna iska sii wado waxba duqbalo waa caayin duqbalo hooyadii caayin Omar hooyadii caayin waan imaanayna anaga madaxweynayaal ku noqonayna barrinta insha Allah dilana tomorrow Omar waa madaxweyne and I will be in Kismaayo insha Allah dilana waan jooga Kismaayo waan dhex taaganahay hal bil iyo kadib waxaan jooga magaalada Kismaayo jooga wallahi beenma idoo isbedel ka dhacay hadalkayga aad dhigis hadalkayga aad u dhigis waxa haddaad askari tahay ha soo fargashan arrinta siyaasad haddaad xeer ilaaliyada oo judicialka maxkamadaha ka shaqaysid ha soo fargashan siyaasadda ha soo fargashan siyaasadda waan ku digaya wallahi beenma waxa isbedelayo waanaad barataa oo la socoto weenaad garanaynin ba laga yaabaa waxa isbedeli doona isbedelka la rabay lagu sameeyo ma xafiisyada dawladda ma ciidanka ma nabadgelyada ma sirdoonka ma sida hadda Kismaayo naqshada laga bedelayo ma waxa isbedelayo oo la bedel rabo waa madaxweynaha iyo wasiiradiisa kaliya madaxweyne cusub iyo wasiir cusub ay maanayn adiga waad sii shaqeen laakiin dad dambiile tahay oo dambi aad gashay oo aad godob gashay administration ka wad raaci wad dabageli aadiyad rag badan baan u tagay halkan fududaado aadiyad u fududaado sheega bax isbedelku u dhacaya insha Allah uu dhici doona haduu Ilaahay ugu dambeyntii waa ka sii baxaya Ahmed Madoobe waxaa la yahay dilka ka daa odayaasha dilka ka daa odayaasha dhaqanka ee lagu dilay Kismaayo ka daa magac Ilaahay baan ku dhaaran karaa inaysan al-shabaab aysan dad ku dilin Kismaayo sababtoo afkaagan keenna inay al-shabaab ka baqday ka carartay ka tagtay ka fogaatay Kismaayo inay soo gali kar waxaan afkaaga keenna inay joogaan ciidan u tababaran ciidan magaraysa tarbiyashay ciidan amniga ilaaliya inay joogaan Kismaayo ayaad inoo sheegtay marka haday ciidankaas joogaan oo al-shabaab magaaladu joogin oo qof al-shabaab uusan magaalada ku sugneen waayo qofka dilaya nabadoonada ummadda Soomaaliyeed waayo nabadoonada ka madaxa fujinay waayo waa ciidankaaga afka xiro Soomaaliya ee fanaaniinta
وعيدا كاغا أفك حيران إذ مقرساي عربي سوي كوا مدح فجري عقاش الصبر ياس because أحمدو أفك كاغا وحلقة هي إني الشباب جوجين كسمايو سونا قالي كرين كسمايو أمني تاي كسمايو إن اللي قد لي كرين كسمايو odayaasha dhaqanka ee soo xulayo siyaasadda aad ku fahmweyseen waxa madaxa xabadda kaga dhufanayo waa ciidanka adigu aad tarbiyeysay Soomaaliya yes right rex mayo amnigiina waa muqaddas inaad amnigiina ilaashataan inaad nabad ku noolaataan inay caruurtiina nabad ku sii waaraan waa muqaddas weeye waa muqaddas cid amniga hooyooyinka joogo garbaharay iyo afmadow iyo bu'aala joogo ama badhaadha joogo ama kulbiyo joogo ama luuq joogo cid loo daba fariisanaya amnigooda ma jirto waa inaad amnigiina gacan bire ku qabataan gacan bire waa inaad amnigiina ku qabataan waa inaad ilaashataa sida hadda aad amnigaaga u ilaashanaysid waa inaad amnigaaga u ilaashataa hooyada balad xaawo joogto garbaharay joogto bu'aala joogto qooqaani joogto afmadow joogto amnigaaga adaa mas'uulka sababta adaa ku nool amniga asaga kuma nool laakiin isbedel baa dhici siyaasadeed hadduu ilaahay yiraahdo sida Puntland Cabdiwali Gaas oo madaxweyne ahaan jiray waa taqaaneen ina Gaas Cabdiwali Cali Gaas waad garanayseen madaxweynuhu ahaan jiray doorasho dhacday waa laga raay may burburin Puntland waana idin faasiyaa waanaad faantaan Puntland ma burburin Cabdiwali Cali Gaas oo geesi ahaan jiray oo garanaysaan dawladda federaalkan dhagaha u jaray oo ana magaraysaay xariga u jaray oran jiray doorasho dhacday cod sanduuq baa la dhigay Cabdiwali Gaas iyo raggii meesha istaagay baa warqad lagu soo qoro la yiri aniga duqbirowe ama adigoo hooyada Soomaaliyeed waxa tiri waxaan doortay Cabdiwali Gaas waxaan doortay dari warqadii baa la dhigay markaas lagu ruday bashqadii lagu ruday meesha sanduuqii baa lagu ruday sanduuqii markii lagu ruday rag loo diyaariyay oo daacade ma ah rag Axmed Madoobe samaystay ma ama rag Cabdiwali Gaas samaystay ma rag daacade oo reehooyooyinka Puntland iyo Boosaaso iyo Garowe iyo Gaalkacyo joogo iyo Qardho joogo ka fikirayo yaa warqadii qaaday warqadii markay soo qaadeen ma aha in la xabad la isku dhuftay la isweeray dadku Axmedo dadku uu waalay moogta xabad iyo qori ku waalay warqadii markay soo laabantay ka soo bixiyaan yaa warqadu hooyo waxa ku qoran adeer waxa ku qoran eed waxa ku qoran aniga waxaan doortay Axmed Madoobe anigu waxaan doortay Omar aniga waxaan doortay hebel aniga waxaan doortay duqbilow warqadii baa la akhrinayaa qofka bato ee warqadahaas ma aha xabad rasaas ma qori ma dil qof bil aadan oo la dilay ma isnaan qof la dilay xabad lagu dhuftay ma warqad cad oo sidan oo kale yaa lagu qorayaa kaliya aniga waxaan doortay Axmed Madoobe aniga waxaan doortay Omar warqadaasi qofka bato waa la tirin warqada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 qofka bato haddii Axmed Madoobe uu bato oo 10 warqadood uu helo he is the president anaga ina matalaya weey haddii madaxweynaha kale iyo magaraysaa musharaxa kale Axmed Madoobe laga bato Axmed Madoobe hal warqad uu helo ee ka kale uu helo 10 warqadood uu helo ka kale ee 10 ka warqadood helay kaasa madaxweyne ku noqonay that's what we call dimuqraadiyad maaha inaad kaadi cabtid maaha inaad dhiig bila aadan gashid maaha inaad dad leysid maaha inaad dad qaraacdid maaha inaad dad caaysid maaha inaad dad bootaysid ma halkii bay ka sii socon waxba inoo sii dhismi ka la doortay waxa weeye 4 sano haysan ama 5 sano wixii uu qabtay hadda 5 sano kadib lagu xisaabin بريتا ويل كاجا أو وحبرتي أو ما أنت شريته صدنجرة ما شلة تنجرة يا بريتا ويناريو ويل كاجا جامعات كصبح يا بريتا ورقد داس يوي ما نوديه ولا ليالو ورقد يتسلي هبل وجردن أنا جري جرد أحمد مذوبة يجروب كيس تاسي دين وحين ربينا كعب شقليان وحين ربينا حبض لش كعب شقليو وحنا ولا جود وحنا هذه يد ولا وجود وأنا تفهمتان تاسوي ديمقراطية لو شيء يسبدل كصوص على كاسوي بدلان مية بربورت مايا عبدولي قاس ولا جرى يسمع ها ترتيب وحلكي ولا جي سمع ها وكب حي سمع ها دني باي من سمع ها بدلان ولا سيدهم بلايت كوش ذي سمع ها هذه سيدهم بلايت كوش ذي سمع ها مدد بايستري ومايا برلمان عصب مدحوين عصب سيستم عصب شغال ويسيس عطا شغال عصب بالقري هرمر إيه مجرى يسوي حل يكسريا ويل كلا درب بريت مدحوين كنا قريم
أنا هذا رجل بالله هنا ساس كله ترمنا وحبيون الشعب شقلنا وحيوسوا والول نوابورن تاسع نعيسو سال بدلي ولا يقول السن مدحوينك الأيمان هربوا السعون هذا مدحوينك الأيمان هربوا السعون أذيان مركز تاسع ربنا ينعدو إن شاء الله هدو إلهنا وحبيون الوعب شقلنا غيركم وصل صعود ملك عيدكم وصل صعود طلع ملك وقدام بيتي مركز شعبك الصوماليين أحمدوه كاو قران مايان إن قعل التاجو شعبك الصوماليين كاو قران مايان إن مدح الله إسكتها تقول لا بس صدق واو والله در تحمده من نعيش عود قرصودي بين ربنا صندوق على الجرو ذا ربنا وضياش النقل كان يحل دبان هذا صوت دورتان نوار ربنا إن شاء الله الدولار مركز ديل كنا كده عقاشة وحجرت كسماية كده هذا كوف الشلمي هذا كوف الشلمي because هذا يجيك كسماية وأنا كسماية عيدن بجوجتر عيدن بجوجو عيدن بان بتقولين الإلهنا حدنا وضياش ومدح لو فريا بب because حلبان هذا يحسون الربان حلبان هذا وبحرين يورون وانا because حلبان هذيك الربن يالربين لك يعني because بدل دوكو كميديا أما هذا الأذيك أجعل السلام بقوله عيدك قاعد دريسا بب حبت لو فرنا هذا عيد هذا قاضي because هذا بتحويله ما يشكل هدو ضبلها جو حسبيه ضبلها من قان لكن هذا مسؤولية هذا قاضي إن شاء الله الدولار وقدام بيتي مركز وادي السلام يا صومالية يسبدل باصوص سعودو أحمدوه وتجي إن شاء الله أنا قدر دارب بسي سوى نكسب مرة الله أنا سيرتي شيء كوا قبيلة ده كنت هاجر ريرهانت كنت هاجر يو ودنت عقدة ودنت بالله وحنكو قاعدة هل سركور إن أحمد محمد إسلام and change refreshment كسمينه دبلو change refreshment أن كسمينه وين الدعيسة وين كقول السنة إنها هدو إلى هيران وحان ذي الله وندر دار أحمد مدوقة تجيه هي كوا قبيلة ده كنت هاجر رير كنت هاجر legacy ساكتو legacy ونكسن حقيقتك اسمه هذا عمر جنس باصومري نيشن وحاسومري برهيرة على صومري الشباب باصومرتي مورغان باصومري مقرس الله مستعان رك بدر أهليوكي سنمش شيري وسيدي سوق على وذا قرعة مصر إيه وحي وذا فرديا نيروبي حتى كوي وذا قيلان مقرت مركب مرة بعد يركي وذاتكي إن مقرن ساي مساجد كسيجسكا شيخ الأوهايو إنه مقرن ساي هالكا إسكفريستو أو غارون هالله أروري إن اللي يجري هذا مرة waxaan rabaa inuu sharaf uga tago businesskiisa iska wato ayatullah khumeeydi inuu noqdo oo loo tala sheegto la yiraahdo hareer baasha waa dhaqaaq laadaay xageen wax wadna in la yiraahdo aniga taas ay gala qurux badan intii hadow la bahdilaa la dhihi lahaa magaraysa balka aniga taas wallahi been ma taas ay gala 8 sano no fucking way man this is new world order bada no fucking way 8 years yaan maamul goboleedkiisa 15 years حاجة جوكتها 50 شو فكرت هذه وأقلع من دقون باتا ما دقون باتا شو فكري 15 years إنه مدحونا ميل سوتر ما ندعيش وحي محاش شاد برلقلته دكتاتور معمول قول والفدرال بلقت جديد 8 years is enough وقبل كان وقب صدي هذا الشرف حقيقته ولا شيء عزيز وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.